حقيقة مرة لما إلا وين arrimaha xaqiiqda marna lama ilaaween ogos waaqayaantan ka adkaanay gumaysiga ogos waaqayaantan ka adkaanay gumaysiga arrimaha xaqiiqda marna lama ilaaween arrimaha xaqiiqda marna lama ilaaween ogos waaqayaantan ka adkaanay gumaysiga ogos waaqayaantan ka adkaanay gumaysiga adduunyada dhammaanteed ummad kasta ayaanba gooni ugu haastaysan ka xusaanayaanay anna ururka jooxo ogos cagar dhigtaalahay ogos cagar dhigtaalahay adduunyada dhammaanteed ummad kasta ayaanba gooni ugu haastaysan ka xusaanayaanay ummad kasta ayaanba gooni ugu haastaysan ka xusaanayaamay anna ururka jooxo ogos cagar dhigtaalahay ogos cagar dhigtaalahay maanta inaad u bogi doontaan oo warbixin fara badan aad ka heli doontaan insha allahu tacaala anu laakiin hal qodob baan rabaa in aan ka hadlo halkaa qodob waxaa weeyaan waa midnimada iyo isku tashiga iyo wada noolaanshaha iyo dadku inay ogaadaan inay hal mida yihiin hawshaasi waa waajib diiniya oo ilaahay subxaanahu watacaala oo ina saaray wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu waxaad qabsataan diinta ilaahay hana kala tegina dadku haddii ay kala tagaan waxaa lagu guumaystaa guumayso kama baxo in dadka la iska hor keeno oo guumaysuhu kala qaybiyo isla markaa la guumaysto waa wada dheer oo inaga horreysay oo ilaa fircoon weeya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ina fircauna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu taa'ifatan yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum markii la kala qaybiyey ninka fircoon la yidhahdo dhulka waa ku kibray buu yidhi wuxuuna kala qaybiyey dadkii meesha iyada joogay qaybo ka mida waa badbaadiyey qaybo ka midana muxuu ku sameeyey wuu gowracay marka dadka marka la kala qaybiyo ee awoodooda la kala fiiqo marka unbaa la gumaysan karaa marka waxaan leenahay bulshada soomaalida ogaadeeniya fariinta ay bixinayso jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waa maxay waa in ay midoobaan gacmahana isqabsadaan iyaga dhexdoodana isuguna waxba ku kala maqnayn ay ogaadaan bulsho aad iyo aad u fara badan baan daris la nahay oo oromo la yidhaahdo ama ethoobiyan la yidhaahdo bulshadaasi waa bulsho isku tashatay iyada qoomiyad walba gooniyadeeda isugu tashatay weeye marka waxaan rabnaa inaguna inaynu isku tashano ka soomaali ahaan ka dawladda iyo ka xisbiga owanalafa iyo ka shacabka saddexdaa awoodood oo la leexin karin inaynu midayno insha allahu tacaala oo aynu xuquuqdeennii aasaasiga haydna kor u raadsano xaqeenna ayaa ka tashigana isagana aynu raadsano intaas ayaan idinkula dardaarmaynaa sababtu waxaa weeye haddii aynaan midoobin ood nagu mashquulisaan in aanu idinkala celinno oon qabiilooyinka dariska a kala celinno waxaa dhumaysa shaqadii aan kor ka haynay marka insha allahu tacaala allahu akbar soomaalidooda in asraacdo ha xorowdo ha midowdo qalbiga iyo maskaxda iyo jirka baa ka xorowdo aad baan idiin salaamay shacabka soomaaliyeed ee degan cayuun degaankan muxuu ahaa cayuun iyo inta ku xiranba waa aas-aaskii halganka muddada dheer socday ama ha noqdo kontomeeyadii ama lixdameeyadii ama toddobaatameeyadii ama siddeetameeyadii ama intii dambe hadda socotay kolley sheekh khaliif baa tilmaamay annagu fariintayda aad bay u koobanta waa dhowr qodob weeye waxaa weeyaan ummaddan in la gumaysto cidna kama murmi karo inay soo halgantayna cidna kama murmi karto halgamadii hore waxaa ka duwan baa nagu soo dhacay waagii hore
dagaalka waan wada geli jirnay oo socon jiray laakiin waagii dambe tashwiish baa nagaloo buuq baa nagu dhacay dhib badan baa dhacay marka maamulkii Tigreega ha dalkeena xukumay caadooyin badan buu nagu beeray oo aan lahaan jirin waaga hore dhaqankeena aan ahayn ay ka mid tahay anaga markii dambe inaan birta iska asalno waa cudur weyn oo dadka bini'aadanka ku dhaca dadka markaad kala qaybiso baad maaragtay maamuli kartaa marka anagu waxaan leenahay hadal waxaan ka bilaabaynaa dagaal baa la galay dhib badan baa dhacay minda waa kuwa koran aan ku leenahay taa ayada ilaa waxay noo yeelaan maxkamadaha adduunka kama harayno annaga gudahayagii wixii dhacay waxaan soo jeedinayaa oo annagu waxanahay aan goosanay cid alla ciddii waxna yeeshay waan cafinay magteenu hadur weeye cid alla ciddaan wax yeelayna cafis baan weydsanaynaa haddii ilaahay yidhaahdana waan wixii markaan awood haddaan yeelana dad badan baan magdhow u samayn doona hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan saa u leenahay waxaa weeye bini aadanku goormaa laga adkaadaa bini aadanka waxaa looga adkaadaa 3 shay kow marka hore in laisku diro midnimadooda la lumiyo marka intaa lagu guulaysto midda labaad waxaa weeye in la gaajaysiiyo oo uu noqdo addoon magan dad kale waa qamadii hana la siiyo Ethiopia maxay soo wadaa buurti xageed maxaa ka soo socota gaajaa lagu dilaa qodobka labaad weeye tan saddexaad waxaa weeye aqoonta lagala dagaalamaa iyo horumarka intiiba way nagu dhacday dadkeenna waa la qaybiyey aqoontii waxaa weeyaan hadda waxaan soo marnay tuulada daridan soo marnay magaalada darida waxaa la yidhi iskuul baa ku yaalla fasalka saxaad buu ku egyahay intaasoo boqol oo carruura degan lama waayin 4 derbi haddii la rabo dadka dhooba ku xiran kara yaa haddii waxaa la oran karaa warba marba macalhawada 6 bilood waxa soo dhigo macnaheedu aqoontii baa saan noqotay adduunka kale tuulada waa intii aan dagaalka ku maqnaa anigu dalka Ingiriiska ku noolaa dagaalkaas kaga jiray tuulada Ingiriiska ah dawladda wax looga baahna caafimaadkii nalkii biyihii aqoontii jaamacadii qolo walba isku filanta annaga marka miyaan dadka ma ka liidanaa ma 5 bilood baan ku dhalanay dadku 9 bay ku dhashaanay way jirtaa kulay wuxuu dhicis u jiraa laakiin kulli 9 bilood baan ku dhalanay ilaahay baa nabada abuuray ilaahay ha uu naga wada dhaxeeyaa dhulkii ugu qurux badnaa ilaahay nisbay waa nala eexday kuwa halka jooga reerku markay muxuu ahaa ilmuhu markuu dhasho qolyahan aan dariska nahay mid baa meesha ka bixi waayo beertii reeda 3 tilaabahay kuma wada noolaan karaan annagana dhulkaad arkeen buu ilaahay nisbay oobiyada aad arkeen buu joogay dad doola xukun iyo boob raba laakiin hadda dadaan darishanahay waa nagu soo kordhay daris baan leenahay darishadaasuna waad garanaysaan dhibaatada haysata marka annagana waa inaan midowno gacanta isqabsanno oo aan hal midaan noqonno taa marka waxay keenaysaa walaalkaa shalay ku qardoofay haddaad la ficiltanto dee waabay dhammaatay idinkaas ku mashquulsan idinkaa hoos u foorro idinkaa islaynaya marka waa inaan ka baxno wixii hore weeye dhib badan baa na gaaray annagana waa isdhibaateynay maxaa weeye dadku markay tawfiiqda ka lunto waa ayagaa laisku salladaya waa inaa cibro noo noqoto waxay nagu dhacay 3 sano u dambeeyey annaga waa birta iska asalnay wiil baa aabihii dilay aabbaa wiilkiisii dilay waxa dhacay kama sheekayn karno yaa qofeen gacantaada qabin baad gacan ku dhufatay qof gacantaada ku qabin baa kugu dhuftay marka waa annaga isku dhimano kala dhimanay marka biidnillaahi kariim arrinta ayadaa waxaan ilaahay ka baryaa inuu cudurka marnaba ilaahay nagu soo celin oo dadkan walaalaha islaamka kulli Soomaali baan nahay haddaad tagto Dawanle Djibouti haddaad tagto Soomaali baa tahay haddaad tagto halkaa iyo muxuu mooyaale ka shishatay Mombasa tag meesha tagto dadka Soomaali waa dad isku jinsi ah dad walaalo dad wada dhashay way adduunyada amaantee ummad kasta ayamba gooni ugu astaysan ka xusaanayaanay anna ururka jooxo ogos agar dhigtaana